halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebookga iyo barteenna internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo naga maqlaysaan waa duhurnimo talaada 10 bisha May sanada 2022. arrimahan barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa kamid ah wakiilada beesha caalamka oo soo dhaweeyay qabsashada qorshaha lagu qabanayo ama lagu soo gabagabeynayo doorashada Soomaaliya xilli maanta ay ku egtahay diiwaangelinta musharaxiinta doorashadaas ku tartami doona. guddiga baarlamaanka doorashadaas qabanqaabinaya ee madaxtinimada oo ku adkaystay in ciidamada qaranka ay qayb ka yihiin ciidamada sugaya ammaanka doorashadaas. meesha ay doorashada ka dhacaysa teendhada waxaana daafaha ilaalinaya ciidamada AMISOM. ciidamada ammaanku ee Soomaaliya waxay ka shaqaynayaan guud ahaan wadooyinka iyo meel walba oo soo gasha iyo guud ahaan wadooyinka caasimadda si aanan isku halayn amniga uusan u dhicin. kaliya ayaa maaragtay la yiri hal loo wareejiyo qaybta agagaarka teendhada iyo doorashadu ka dhacayso. dowladda Ukraine oo sheegtay in ugu yaraan 100 qof oo rayid ah ay weli hoy u tahay dhuldhaca hoose ee warshada biraha farsamaysa ee Mariupol iyo dabayl xooggan oo ku dhufatay degmada Taleex oo khasaare geysatay. barnaamijka waxaa wadajir u soo saaray Xasan Cali Geelle iyo Samiir Cabdullaah Jaamac anigoo Aftaax Ibraahim Cageerno oo la socodsiinaya balse marka hore wararka caalamka iyo Kawthar Maxamed Cabdullaah ku soo dhawaada. Ferdinand Marcos Jr. oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee dalka Philippines ayaa ku horeeya doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. waxa uu helay taageerada in ka badan 50% ee dadkii codeeyay iyadoo haatan la tiriyay ku dhawaad dhammaan codadkii la dhiibtay. Mr. Marcos ayaa waxaa lagu qasbay inuu xukunka ka dego sanadkii 1986. Ferdinand Marcos oo mar hadal ka jeedinayay xarunta dhexe ee xisbigiisa ayaa waxa uu yiri: ngunit kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang xataa haddii aysan codbixintu dhammaan tahniyadayda lama sii sugi karo. waxaan u mahad celinayaa qof walba dadkii kaalmadana siiyey, kuwii qadiyadeenna ku soo biiray, nafurnimadii aad muujiseen, hawshii adkeed ee aad qabateen, wakhtigiinnii, awooddiinnii iyo dadaalkiinnii. shaqada noocaas oo kale ah, dadaal kasta oo xajmigaas leh ma aha mid uu qof keliya sameeyo. dad badan ayaa ku lug leh oo siyaabo badan oo kala duwan u shaqaynaya. dhammaantoodna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. It involves very many people working in very many different ways, and to all of them I thank you. dibadbaxayaasha Sri Lanka ee ka soo horjeeda dawladda ayaa weli mudaharaadyo ka wada afafka hore ee xafiiska madaxweynaha kaas oo ay uga soo horjeedaan bandowga lagu soo rogay dalkaas kadib markii rabshado ka dhacay halkaas uu sababay inuu shaqada iska casilo ra'iisul wasaaraha. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay isku dhac shalay Isniin ahayd ku dhex maray halkaasi taageerayaasha iyo dawladda iyo kooxo kale oo mucaarad ah. dawladda Ukraine ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 qof oo rayid ah ay weli ku xaniban yihiin warshada farsamaysa birta ee Azovstal oo ku taal magaalada Mariupol, taasoo weerar xooggan ugu imanayo ciidamada Ruushka. waxaa sidoo kale goobtaasi ku sugan in ka badan 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada Ukraine. dhanka kale, saadaal horudhac ah oo la sameeyay ayaa sheegaysa in dhaqaalaha Ukraine uu hoos ugu dhici doono 30% sanadkan 2022 sababo la xiriira duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi. ugu dambeyntiina koox haween ah ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan kaasi ay uga soo horjeedaan go'aanka Taliban ee ah in haweenka ay ku qasban yihiin xirashada dhar jirkooda oo dhan daboolaya marka ay ku sugan yihiin goobaha dadweynaha. go'aankan ayaa ah kii ugu dambeeyay ee ka soo baxa kooxda Taliban tan iyo markii ay la wareegeen Afghanistan bishii August ee sanadkii tagay 2021. warkiina waa naga inta Cabdi Fataax. aad baad u mahadsantahay Kawthar Maxamed Cabdullaah ee taasi aad wararka caalamkeena la socodsiinaysa dhegeystayaal u diyaargarooba qaybaha kale barnaamijka. aynu ku bilownayo wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay qorshayaasha lagu soo gabagabeynayo doorashada madaxtinimada ee dalka taasoo soo jiitamaysay sanad iyo dheeraadkii la soo dhaafay. dhanka kale gelinka dambe ee maanta ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo diiwaangelinta musharaxiinta ku tartami doona doorashadaasi lagu wada in la qabto maalinta Axadda ee soo aadan. in ka badan 30 musharax
ayaa ilaa haatan isu diiwaangeliyey inay ka qayb galaan tartanka waxaana la filayaa in intaas tirada ay kasii badato markii lasoo xiro diiwaangelinta galabta wariyaha b b c da muqdisho ibraahim maxamed aadan oo si dhow ula socday wararka doorashada ayaa haatan khadka luusi life ee magaaladaasi toos ugu jira ibraahimow bal noogu bilow wararka ay soo saareen wakiilada beesha caalamka. cabdifataax goordhoweed war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka kala guurka ee midowda afrika ee soomaaliya admis dalal ay ka mid yihiin belgium canada denmark masar ethoobiya midowda yurub finland jarmalka urur goboleedka igaad ireland talyaaniga jaban kenya ingiriiska maraykanka dalal kale oo ka mid a wakiilada beesha caalamka ee jooga soomaaliya adaha caalamiga ah waxay sheegeen in ay soo dhaweynayaan ku dhawaaqista guddiga qabanqaabada baarlamaanka doorashada madaxweynaha ee ah inay dhici doonto doorashadu maalinta axadda ah ay bishu ku beegan tahay 15 bisha May sanadkan 2022 waxaan dhiirigelinaynaa bay yiraahdeen horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaangelinta murashaxiinta u taagan xilka madax iyo u diyaar garowga kale ee loogu jiro inaan laga dibdhicin waqtiga ah ma jirto wax marmarsiyo ah oo sabab u noqon kara bay yiraahdeen dib u dhac kale oo dheeraada iyadoo labada aqal ee baarlamaanka la dhaariyay oo si buuxda ay u shaqeynayaan arrin kasta oo doorasho oo taagan waa inay xaliyaan madaxda baarlamaanka cusub ee sida saxda ah loo doortay ay yiraahdeen wakiilada beesha caalamka ugu dambeyn waxay yiraahdeen waxaan ku boorinaynaa madaxda Soomaaliya inay si xasiloon ku dheehan tahay ku soo gabagabeeyaan ibraahim khadka ka go'ay ibraahim maxamed aadan dabcan waan kugu soo laaban doonaa ibraahimow waa kugu soo laaban doonaa balse isla wararka doorashada aynu sii wadna ee guddiga baarlamaanka Soomaaliya ee qabanqaabinaya doorashada madaxtinimada ayaa ku adkaystay in ciidamada qaranka ay qayb ka ahaan doonaan ciidamada sugaya ammaanka doorashadaasi. ibraahim baase khadka ku soo laabtay warkaas way noo dambeynaya. ibraahimow waxaad maraysay in war-saxaafadeedkay soo saareen beesha caalamka in ay tahay in doorashada sideeda ku socoto wixii khilaafaad jirana guddiga la doortay baarlamaanka la doortay u xallay. beesha caalamka waxaan ku boorinaynaa madaxda Soomaaliya inay si degdeg ah nabdoon oo kalsooni ku dheehan tahay ay ku soo gabagabeeyaan marxaladan kama dambaysta ah ee geedi socodka doorashada si loogu soo jeestay bay yiraahdeen arrimaha dalka iyo dawlad dhisidda ee mudnaanta leh. waa tahay ibraahimow bal diiwaangelintii iyadoo xaggee maraysaa galabtay xirmaysa maanta oo kaliya ilaa saacadan aan hadlayno cabdifataax waxa isdiiwaan geliyay in ka badan ama aan iraahdee 6 murashax oo cusub kuwaas oo kale ah maxamed amiin faarax madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani Zakariye Xaaji Maxamuud Cabdi oo hore xildhibaan iyo wasiir u soo noqday Xusmaan Xasan Weheliye dadka qaarkii waxay u yaqaanaan Xasan Bariise wuxuu ahaa wariyihii hore ee BBC-da uga soo warrami jiray magaalada Muqdisho. murashaxiinta kale ee maanta isdiiwaan geliyay waxa kamida Cabdi Cali Xasan oo hore u soo noqday xildhibaan waxaa kaloo kamida duqii hore ee caasimada Muqdisho Thabit Cabdi Maxamed. tiradaas 6 ah ayaa saaka ilaa hadda isdiiwaan gelisay guud ahaan tirada cabdifataax oo isdiiwaan gelisay ilaa saacadan hadlayno waa 38 murashax waa tiradii ugu badnayd ee isdiiwaan gelisa doorasho madaxtinimo ee Soomaaliya. waxaan ogeynayn 2017 in ay isdiiwaan geliyeen ilaa iyo 24 murashax. diiwaan gelintu way sii socon doontaa ilaa gelinka dambe markaas oo la ogaan doono tirada rasmiga ah ee ugu dambaysa ee isu diiwaan gelin doonta doorashada madaxweynaha ee dhici doonta Axadda. markaasna waa marka aad wararka tooska inugu soo tabin doonto hadduu eebaydmo ibraahim maxamed aadan wariyaha BBC da Muqdisho ayuu kaasi khadka tooska ugu jiray. meelaha qaar hadduu khadka gogo'aya qaybihii hore waan ka cudurdaaranayna hase yeeshee markan guddiga baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan qabanqaabada doorashada madaxtinimada ayaa ku adkaystay in ciidamada qaranka ay qayb ka yihiin ciidamada sugaya ammaanka doorashadaasi. guddigan ayaa shalay gelinkii dambe war ay soo saareen waxay ku sheegeen in habraaca amniga ee doorashada lagu wareejiyey teendhada doorashada ay ka dhacayso guud ahaanba amnigeeda in ay gacanta ku hayn doonaan howlgalka midowda Afrika ee ATMIS. xildhibaan maxamed ibraahim mucalimu oo ka mid ah guddigaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya loo xilsaaray ilaalinta wadooyinka ee xilliga doorashada ee magaalada Muqdisho. khadka taleefanka ayuu goorroodii ugu warramay.
sidaad ogtahayba waxaa maalinta berri ah bilaabanaya hadal jeedintii murashaxiinta isu soo sharaxay madaxtinimada Soomaaliya oo ah in ka badan 30 murashax marka waxaa la rajaynayaa in hawshaas ay bilaabato maalinta berri ah sidaa darteed waxaa aad loo adkeeyay amniga iyo guud ahaan anshaxa looga shaqaynayo teendhada Fisioone ee meesha ay khudbooyinka ka dhacayaan iyo meesha ay doorashadu ka dhici doonto 15 marka waxay tahay in aanay dhicin isku dhex daadsanaan taasoo aan waay aragnimadii aan ka dhaxalnay ahayd doorashadii guddoonka marka wax walba waa la hagaajiyay sidii amniga ayaa la hagaajiyay protocolkii iyo nidaamkii oo dhan ayaa la hagaajiyay marka waxaa la rabaa in nidaamka la raaco nidaamkaas ayaana la soo saaray amniga teendhada ee doorashada ka dhacaysa gabi ahaanba waxaad ku wareejiseen ATMIS halkaan ognahay doorashadii middan ka horreysay 5 sannadood ka hor iyo xoogaa weliba in ciidamada Soomaalida ay ammaanka hayeen marka maxaa Soomaalida uga cabsanaysaa amniga doorashada waxaa ka hadlaynaa agagaarka meesha ay doorashada ka dhacaysa teendhada waxaana wada jooga tiro cayiman oo ciidamadii Soomaaliya oo booliiskii Soomaaliya kamida oo awalba maaragtay waa kuwa had iyo jeer jooga ee gudaha soo gala waxaana geesaha ama daafaha ilaalinaya ciidamada AMISOM amniga maaragtay guud ahaan iyaga mas'uulka ah dhinacaas sidoo kale ciidamada ammaanku ee Soomaaliya shaqo weyn oo muhiim ah ay hayaan waxay ka shaqaynayaan guud ahaan wadooyinka iyo meel walba oo soo gasha iyo guud ahaan wadooyinka caasimadda marka shaqo kale oo muhiim ah oo taa ka ballaaran ayaa u taala waxaana jirta wada shaqayn u dhaxaysa marka si aanan isku halayn amniga uusan u dhicin kaliya ayaa maaragtay la yiri hal loo wareejiyo qaybta agagaarka teendhada iyo doorashadu ka dhacayso laakiin gudaha laguma aaminayo miya gudaha ciidamadu way joogaan ciidamada booliis aan ka shaqaynayo oo inkastoo nambarkooda uu xadidan yahay sababtana loo yeelanay waxay tahay waa anshaxa iyo protocolka ee ma aha qoonsaraan kale oo gaar ah dadka qaar waxay leeyihiin haddii ATMIS lagu wareejiyo ammaanka teendhada ee doorashada ka dhacayso ciidamadii Soomaalida ee waajibkeedu u ahaa inay arrimahaas oo kale ay u dhundulolaan oo ay gacanta hayaan waa laga wareejiyay marka soo taa ma keenayso kalsooni darro walaalow ciidamadan ATMIS la yiraahdo ama ciidamada AMISOM la dhihi jiray waa kuwa ilaaliya guud ahaan wadankan madaxtooyada ilaaliyaan aqalada baarlamaanka ilaaliyaan garoonka iyo airportka ilaaliyaan marka haddii ay doorashada ilaaliyaan wax dhib oo hadda ku jira ma laha ujeedkuna waxay tahay in guud ahaan murashaxiintu ay u sinaato waxaa dhici karta murashaxiinta qaar baa dowladii hadda ka tirsan oo maaragtay dowladda oo madaxdii ah qaar baa kuwii hore ah qaar baan weligood madax noqon marka waxaasoo dhan waxay tahay in murashaxiintu ay sinaadaan oo maaragtay amnigu ay u sinaadaan ujeedkuna intaas weeye wax kaloo hadda dhib jira ma jiraan laakiin macallimiyow qofka madaxweynaha noqonaya soo ma ahan ciidamadii uu ku tirsanaan doono oo hadhow ay hoos iman doonaan marka soo taa ma abuuri karta madmadow ah maya haba yaraatee ma jirto ciidamada Soomaalida waa kuwa ugu xoog badan ee shaqaynaya waa xooga kaliya la isku halaynayo waa kuwa ka shaqaynaya meel walba marka wax dhibaato oo ciidamadu ay qabaana ma jirto waa lala kulmay saraakiishoodu way og yihiin way ku faraxsan yihiin ujeedkuna waxa ay tahay in dalkan si nidaama doorashadaas ugu dhacdo saraakiishuna runtii ayagaaba maaragtay hurmuudka sidii loo hagaajin lahaa amniga waxay mas'uul ka yihiin guud ahaan militariga shaqaynaya oo daafaha caasimadda iyo gudaha qaybo kamid ah ka shaqaynaya booliiskii baa shaqaynaya ciidamadii nabad sugidda shaqaynaya waa shaqo howleed wada jira ma aha mid gaara marka ma aha in maaragtay si qaldan loo arkay laakiin waxay tahay in la arko guud ahaan wanaagga la doonayo kaasi waxa uu xildhibaan maxamed ibraahim mucallim oo ka mid a guddiga qabanqaabinaya doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya oo khadka taleefanka igu warramaya Facebook ayay dhegeystayaal ra'yigooda warbixinta kaga soo dhiibteen midii labaan soo qabtay Ciidruus Maxamed Cumar oo jooga Booramo wuxuu leeyahay runtii waa aan soo dhaweynaya hadal ka soo yeeray guddiga baarlamaanka ee yiraahday sugidda ammaanka waxay qayb ka yihiin ciidamada ammaanka arrintaas waan ku bogaadinayaa ciidamada xoogga dalkana waxaa waajibkoodu yahay inay gutaan oo ay si cadaalada ay ku jirto amniga u sugaan cabdisalaam cali oo isna jooga magaalada muqdisho wuxuu leeyahay guddiga baarlamaanka ee ku adkaystay ciidamada qaranku ay qayb ka yihiin sugidda doorashada runtii waa waxa loo baahan yahay waayo ciidamada waa astaanta dalka uu leeyahay waxaan qaar ka mid dhegeystayaasha BBC Facebook BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markana wararka ka imanaya degmada Taleexe ayaa waxa ay sheegayaan in roob aanan sidaa u badnayn balse watay dabayl xooggan oo khasaaro weyn ka geystay magaaladaasi dabayshan ayaa waxa ay wararku sheegayaan inay burburisay dhismooyin isugu jiray deegaan iyo weliba kuwa ganacsi dabayshu waxa ay kaloo la sheegay in hal qof ay dhaawacday hase yeeshee khasaaruhu uu u badan yahay dhanka dhismooyinka oo inta badan dabayshu ay jiingada ka qaaday haddaba maxamuud cali warsame oo gudoomiyaha degmada Taleex ee maamulka Puntland khadka taleefanka ayaan goordhaweyd ku weydiiyey sida ay wax u dhaceen
roob aan koonayaasha jirin laakiin inta magaalada iyo inta ku dhow helay baa jiray roobkaasina dabayl buu watay duufaana dabayshaasi magaalada aad bay wax u yeeshay guryo badanina waa dumeen guryo badanina wixii yiilay waa qoyeen oo biyihii iyo dabayshii baa wax yeeshay oo dee guri baa arkaysaa saqafkii iyo dushii iyo jiingadu markay guriga ka duushay dee roobkii wuxuu ku da'ayaa wixii hoos yid meeshii sandaqada ahayd ama meelihii bacdayaasha sandaqadiiba waa qaaday iyo wixii jirayba marka waxyeelo hantiyeed baa gaadhay magaalada Taleex waxyeeladaas intay la eg tahay marka horta ma aanan qiimayno ma ururin laakiin kolay waa hanti aad u fara badan qiyaasta marka la qiimeeyo ilaa $500,000 bay tagaysaa dadka ay dhibaatada soo gaartay ilaa hadda waxaad u qabateen waxaan u qaban karnaa waa iska yar yihiin ama waxqabadkeedu meesha hay'adana ma joogaan dawladuna de kama howlgasho oo meelaha madaxdu joogtaa markiiba markaas wax laga galaa dadka shacabka ahi tamartii ay isku dhaandhaabeen ninkii markaa qorax fadhiyey oo gurigu jiingada ka qaaday dee in jiingadii bal wax lala abaabulo oo jiingadii loo saaro oo bakaaray wax laga amaahdo oo bal marka hore aanu sinaano bal qofka qoraxda ama roobka laga dado kii isagu sandaqad lahaa oo sandaqadiisiiba duushay taas hawl badan bay rabtaa oo waxay u baahan tahay jiingada waxay rabtaa qalab kale isna hareeraha laga qoriyo iyo agab badan bay u baahan tahay dadkaasi wali wasad ban fadhi adigu guri aan badnayn baa waxaa la saaray jiingad burburka haatan magaalada soo gaaray ma meelo gaar oo ku egyahay mise magaalada dhan wuu camimay magaalada dhan buu ku egyahay magaalada dee guryo bad qabaana waa jiraan laakiin laba guryo dhinacaas ku haya midna dumay midna bad qaba dabayshan roobka la socday ma isna daadad iyo wax ma geystay mise dabayshan baa xoog badnayd roobku daad weyn oo biyo qaado oo dhul kale uma gudbin laakiin meeshii ay dabayshu ka qaaday saqafka biyaha galay biyahaasina wixii yiile waxbay yeeleen oo waa laga qaateen qaabkaas unbu ah suuqii magaalada sidee u saamaysa arrintan aad bay u saamaysanoo maxaysataa baa jiray dad sandaqada ku jiray baa jiray dad meherada yaryar iyo wax iska haysta baa jiray oo dee intaa nolol maalmeedka raadin jiray shaah kartin jiray makhaada shidan jiray baa jiray heer walba way gaadhay qof kasta oo ka midaba way saamaysay waayo laba qof oo dhinac isku haya mid wax gaadheen kii kalena waa la qabaa oo mar haddii wixii dhinac yaalin waxna ma kala lahaa laakiin wuu la qabaayo dee waa daana wada gaadhay laakiin aad bay wax u gaadheen dadka shacabka wax digniina oo aad hesheen ka hor intaanay dabeesha halkaas soo gaarin horta digniin markii la bixinayo ilaahay unbaa digniin bixin kara oo systemkaas oo kale wax ka oge qof bini aadan waxba kama oga marka dabeyl guuraysay oo intay qaarada soo martay meesha iska soo guuraysay ma ahayn oo iska soconaysay systemka hadda waqti 2 bilood ka horeysay ama 3 bilood ka horeysay waa laga yaabaa bay yiraahdeen qolada saadaasha wadu roobab dabayl wataa inay Soomaaliya ka da'aan laakiin meel ma ay sheegin inay dabayl soconaysay oo dabaylahan socdo qaarada u gudbo ma ahayn dabayl waxay ahayd la timi roobka la socotay xilliga roobka intii roobka ku eekay marka wax digniin ah ka horeysay aan haynin sidan oo kale hore ma uga dhici jirtay magaalada laba goor hore ka dhacday laba goor hore maxaa diyaar garow aad samayseen marka wax diyaar garow ma aan sameeyno dabeecadda deegaanka uu bayahay cidina wax ka bedelan ma sameyn mana sameyn karin ba oo ninkii qol guri dhistaan gurigiisu jiingadaas u saartaa guriga shumaa wax diyaar garow la sameeyay ma jirin oo asta laakiin dabeeciyo joogta ma ahayn sidii mar dhacay baa laakiin maadaama hore u aragteen tan oo kale soo ma wanaagsanayn inaad ka taxadirtaan oo dadka aad wacyigelisaan oo loo diyaar garoobo dhibaato noocan oo kale duruufaha jira maanta qofku ma wacyigeli karo waayo duruufta taaway gurigana shub ka dhigi maysid qofku dhaqaalo shub ku samaysto ma haysto daar shub ka dhigi maysid qofkii sandaqad ku jiraan hantiga guriga weyn oo dhagaxa ku dhisto oo isaguna ku dhisto male waa duruufahan ku ogolaanayno haatan maadaama dhibaatadu ay intaa gaarsiisan tahay qorshihiina muxuu yahay ayagu anagu wuxuu yahay ilaahun baanu tuugaynaa inuu dadka badbaadiyo cid waa la hadalay laakiin cidaanu la hadalay wax emergency oo soo gaarayna ma jiraan haddana wax noo diyaarsan oo aan ognahay ma jirto ilaahay un baanu iska baryaynaa inuu ummadda ilaahay badbaadiyo oo kaasi waxa uu ahaa maxamuud cali warsame gudoomiyaha degmada Taleex ee maamulka Puntland oo khadka teleefanka igu waramay markana sidaad warka caalamka ku maqlayseen dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 qof oo rayida ay wali ku nool yihiin dhuldhaca hoose ee warshada Azovstal ee biraha farsamaysa ee magaalada Mariupol taas oo weerar culus ay ku hayaan ciidamada Ruushka in ka badan 1,000 askari oo reer Ukraine ayaa iyana wali goobtaasi ku sugan ciidamada Ruushka ee duulaanka ayaa la sheegayaa inay waxoogaa horumar ka sameeyeen dhanka iyo gobolka Donbas ee bariga ku yaal halka dhibaato culus ay ka soo gaartay dhinaca waqooyiga halkaasoo la sheegaya in dagaalo weerar celisa ay ka socdaan waddanka Ukraine faafahinta warkan waxay noo haysaa Samir Cabdullaahi Jaamac waxaa mar kale weerar culus uu ka socdaa aagga warshada birta samaysa ee Azovstal ee ku taala Mariupol halkaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay laga soo saaray dad rayid ah dagaalyahanada warshada ee ku sugan gudaha ayaa sii wada inay difaacaan magaalada aadka u burburtay islamarkaasina ah goobta ugu dambeysa ee militariga Ruushka ay ka wadaan dagaalka
ciidamada ruushka ee duulaanka soo qaaday waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan weerarada joogtada ah ee ay ka fulinayaan warshadda birta, balse b b c-da ma aysan helin caddeymo ka madax bannaan sheegashooyinkaasi. wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Annalena Baerbock ayaa booqasho aan la shaacin ku tagtay dalka Ukraine, waxaana ay noqonaysaa mas-uulkii ugu sarreeyey ee Jarmal ah oo soo gaara dalka tan iyo duulaankii ruushka ee soo bilowmay 24 Febraayo. Baerbock oo kulamo la qaadanaysay dadka deegaanka ee Bocha, halkaas oo ciidamada ruushka lagu eedeeyey inay ka geysteen dambiyo dagaal, ayaa haatan noqonayso goob ay booqanayaan hogaamiyeyaal iyo diblomaasiyiin. magaaladan oo u dhow caasimadda Kiev ayaa noqonaysa goob ay booqanayaan hogaamiyeyaal iyo diblomaasiyiin. samiir cabdullahi jaamacad bay mahadsan tahay. warbixintaas ayay nala socodsiinaysa. markana ciyaarihii aan eegna ee caawa waxaa dhici doona kulan ka tirsan horyaalka ingiriiska. weliba waxaa isaga hor imanaya kooxaha Aston Villa iyo Liverpool. Aston Villa waxaa hogaamiyay ciyaaryahan Steven Gerrard, laacibkii hore kabtankii hore ee kooxda Liverpool. waxuu ka hortagayaa kooxdiisii hore ee kabtanka uu ahaan jiray. haatanse waxa uu doonaya inuu kooxdaasi ka badiyo. Steven Gerrard oo hadlaya ayaa waxa uu sheegay in shaqadiisu haatan ay tahay in uu guulo u soo hoyo kooxda Aston Villa. ciyaartaasna waxaa laga yaabaaba waa ciyaarta caawa dhex mari doonta Liverpool iyo Aston Villa inay noqoto ciyaarta go-aanka looga gaarayo tartanka loogu jiro horyaalka ingiriiska ee kubadda cagta. Man City ayaa hogaaminaysa oo 3 dhibcood oo nadiifa ayay ka horeysaa kooxda Liverpool oo 86 dhibcood ayay ka hogaaminaysaa. weliba goolal badan oo ay ku dartay oo 4 gool oo kale ayay dhanka goolelintana kaga horeysaa. Liverpool haddii ay ciyaartan badiso waxay laga yaabaa in ay sii socoto baritanka dhanka ciyaaraha ee loogu jiro tartanka horyaalka ingiriiska. markanse baafinta maanta waxaa stuudiyaha b b c da nairobi si toosa idinkaga soo tabinaya anigoo ah jamaal axmed cabdiraxmaan iyo fartuun ismaaciil. fartuun mahadsanid. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay nuurta isaaq caruus. waxaay baafinaysaa maxamed isaaq caruus. waxaa ugu dambeysay isagoo ku sugan boosaaso soomaaliya sanadii 2010. haddaba haddii uuna maqlayo maxamed isaaq caruus ama jirta cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiya nuurta isaaq caruus, iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay malkadhiidha. maxamed siyaad cali waxaa uu baafinayaa kaasin siyaad cali oo ugu dambeysay oo ku noolay dalka Itoobiya sanadii 2013. haddaba haddayna maqlayso kaasin siyaad cali ama jirta cid garanayso, fadlan warkeeda la gaarsiiyo maxamed siyaad cali, iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay markaa diiday. maxamed nuur ibraahim waxa uu baafinayaa ibraahim maxamed ibraahim. waxa uu ugu dambeysay isagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 1999. haddaba haddii uuna maqlayo ibraahim maxamed ibraahim ama ay jirta cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo maxamed nuur ibraahim, iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay malkadhiidha. cabdikariim cali isaaq waxa uu baafinayaa mariin cali isaaq ugu wardambeysay iyadoo ku noolay dalka Kenya sanadii 2016. haddaba haddayna maqlayso mariin cali isaaq ama jirto cid garanayso, fadlan warkeeda la gaarsiiyo cabdikariim cali isaaq, iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay malkadiida. deeqa cumar faarax waxay baafinaysaa qadiijo cumar faarax. waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan xeryaha qaxootiga ee xagardheer ee Kenya sanadii 2018. haddaba haddayna maqlayso qadiijo cumar faarax ama jirta cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo deeqa cumar faarax, iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay malkadhiidha. suldaano maxamed abuukar waxay baafinaysaa cabdicasiis maxamed abuukar oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Itoobiya sanadii 1999. haddaba haddayna maqlayo cabdicasiis maxamed ama ay jirta cid garanayso, fadlan warkiisa la gaarsiiyo suldaano maxamed abuukar, iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay malkadiida. cismaan bare gaabow waxa uu baafinayaa aadan axmed gaabow. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 1976. haddaba haddii uuna maqlayo aadan axmed gaabow ama ay jirta cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiya cismaan bare gaabow, iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay malkadhiidha. samey nuur waxay baafinaysaa yuusuf cabdulaahi cabdi oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolay dalka Canada sanadii 2015. haddaba haddii uuna maqlay yuusuf cabdulaahi ama ay jirta cid garanayso, fadlan warkiisa la gaarsiiyo samey nuur axmed, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay malkadiida. isaaq cali maxamed waxa uu baafinayaa aadan cali maxamed iyo maxamed cali maxamed. waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 2010. haddaba haddii ayna maqlayaan aadan cali maxamed iyo maxamed cali maxamed,
ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyey isaaq cali maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay malkadhiidha. macalin maxamed aadan waxa uu baafinaya cabdilatiif macalin maxamuud oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka soomaaliya sanadii 2012 haddaba hadduu maqlayo cabdilatiif ma jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo macalin maxamuud aadan cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay hilaweyn. maxamed ooge xareed waxa uu baafinayaa maxamed maxamuud ooge waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan boosaaso sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed maxamuud ooge ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiye maxamed ooge xareed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay malkadhiidha. cadeey xuseen maxamed waxa ay baafinaysaa nuuris xuseen maxamed oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolayd dalka soomaaliya sanadii 1996 haddaba haddayna maqlayso nuuris xuseen maxamed ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo cadeey xuseen maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay malkaadiide. faadumo cabdulaahi kaynaan waxay baafinaysaa daahir cabdulaahi kaynaan cabdiye cabdulaahi kaynaan iyo faysal cabdulaahi kaynaan waxaa uu wardambeysay oo ku sugan baardheer sanadii 2008 haddaba haddii ayna maqlayaan daahir cabdulaahi kaynaan cabdiye cabdulaahi kaynaan iyo faysal cabdulaahi kaynaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo faadumo cabdulaahi kaynaan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. maxamed cabdi ibraahim waxa uu baafinayaa salaad cali maxamuud oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Kenya sanadii 2010 haddaba hadduu maqlayo maxamed cabdi ibraahim ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo salaad cali maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay malkaadiida. aadan hilowle ugaas waxa uu baafinayaa suldaane hilowle ugaas iyo kuusow hilowle ugaas waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada marka ee dalka Soomaaliya sanadii 2012 haddaba haddii ayna maqlayaan suldaane hilowle ugaas iyo kuusow hilowle ugaas ama jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo aadan hilowle ugaas iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay hilaweyn. xuseen cabdi ibraahim waxa uu baafinayaa cali cabdi ibraahim oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2011 haddaba haddii uu maqlayo salaad cali ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo maxamed ibraahim cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay awbare. cabdixakiin maxamed boore waxa uu baafinayaa shuceyb maxamed boore iyo iftiin maxamed boore waxa uu wardambeysay oo ku sugan dalka Soomaaliya sanadii 2001 haddaba haddii ayna maqlayaan shuceyb maxamed boore iyo iftiin maxamed boore ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cabdixakiin maxamed boore iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay hilaweyn. xaawa cali madow waxay baafinaysaa cabdulaahi xuseen barre iyo xamdi xuseen barre oo ugu wardambeysay oo ku noolaa dalka Yemen sanadii 2020 haddaba haddayna maqlayaan cabdulaahi xuseen barre iyo xamdi xuseen barre ama ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo xaawa cali madow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay hilaweyn. cali baashi ibraahim waxa uu baafinayaa deeqa axmed xasan axmed ibraahim xuseen marwaan cali baashi iyo mascuud cali baashi waxa uu wardambeysay oo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayaan deeqa axmed xasan axmed ibraahim xuseen marwaan cali baashi iyo mascuud cali baashi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo cali baashi ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay malkadhiidha. cabdi cabdulaahi dirir wuxuu baafinayaa maxamuud cabdulaahi dirir oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2017 haddaba hadduu maqlayo maxamed cabdi cabdulaahi ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdi cabdulaahi dirir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay hilaweyn. faadumo aadan amiin waxay baafinaysaa xaliimo aadan amiin waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 2016 haddaba haddii ayna maqlayso xaliimo aadan amiin ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo faadumo aadan amiin iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay malkadhiidha. dahabo ibraahim dooli waxay baafinaysaa ibraahim dooli aadan oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 1994 haddaba haddii uu maqlayo ibraahim dooli aadan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo dahabo aadan dooli iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay buur aaminow. maryan maxamed daahir waxay baafinaysaa yacquub geedi xuseen waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2019 haddaba haddii uuna maqlayo yacquub geedi xuseen ama
haddaba haddii uuna maqlayo yacquub geedi xuseen ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiye maryan maxamed daahir iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay malkadhiidha. nasra cabdulaahi aadan waxay baafinaysaa yuusuf cabdulaahi aadan oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka soomaaliya sanadii 2010. haddaba hadduu ina maqlay yuusuf cabdulaahi aadan ama jirta cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo nasra cabdulaahi aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcas ay ku leedahay malkaadiide. baafinta ugu dambeysa ee maantana waxay naga soo gaartay deeqa cumar faarax waxay baafinaysaa qadiijo cumar faarax waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan xagar dheer kenya sanadii 2018. haddaba haddii ayna maqlayso qadiijo cumar faarax ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiya deeqa cumar faarax iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcas ee ku leedahay malkadhiidha. baafintiina waa inaga intaa. anigana waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa idaacaddii duhurnimo oo wadajirka usoo saareen samiir cabdulaahi jaamac iyo xasan cali geelle. ciddii barnaamijkan dhaafay waxaad dib uga daalacan kartaa barteena internetka ee bbcsomali.com halkaas oo aad ka heli doontaan wararkii ugu dambeeyay caalamka gobolka iyo soomaalidaba. intaan dib ugu kulmi doona 5 galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.